إخواني والعيال مانتا وحان كهل دونا هدو إلى هي لحظو تبارك وتعالى موضوع آدو خدات آدو كلول آدو ضرن أنه هناك سنين يان كهل دونا إن شاء الله موضوع عصف حبويان هدو إلى هي لحظو قرحيضا مقالة عاصمة دالكا الصومالية عاصمة دودا مقدشو حمر عاد كدعيسة إن كلا جوين إنها كلمة أن كدهو جيريدا سدحون لوجو دمانيو دالك جيبوتي نور لجهين إنها كإلى هذا كلمة كوبان ينجعلها عاوة إن شاء الله تعالى ولا ليال موضوع عصوى موضوع مهمة انت آنا موضوع قليل لبا أرارة ينجعلها لبا هردعة إنها كإلى هذا waxaan dhageystay siyaasiyiin fara badan oo arinta ka hadlaysa qaraxyada Soomaaliya ka dhacaysa siyaasiyiinta oo iskugu jira kuwa dawladda imika maamula madaxweynaha iyo kuwa la shaqeeya dhamaantood duqa magaalada iyo ragga amniga ka taliya caasimadda Muqdisho waxaan dhageystay mucaaradka madaxdooda oo madax soo ahaan jiray imikana mucaarada iyakana waan dhageystay waxay ku kulansan yihiin laba arimood raggaasi arinta koobaad dhamaantood waxay yiraahdeen kelmadda sharciga ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan ka xunnahay geerida foosha xun la dhacday wixii dhintana ilaahay u naxariisto kuwa xanuunsan ee dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo saas bay dhadaan arrahmatu lil shuhadaa والشفاء للجرحى شهادتنا وحان إلهي ورجينا إني تبارك وتعالى ونحرسته مساكين تاس ماشاس كو حنوصلنا يكون وعنتنا إنه إلهي عافيه ودعاء ونكسن دعاء داس بأخيان هرين طلبات وحيد هذان وعن باريننا وحكدن بينا حركة للهضو الشباب المجاهدين وأباهن إن لغو هرتغو وعدو الصوماليات ودبد إن لغسو قليل intaas bay ku celiyaan waa music la tumayo oo dhamaad lahayn in la duceeyo iyo in la cambaareeyo in la duceeyo iyo in la cambaareeyo in la cambaareeyo iyo in la duceeyo waxaad moodaa madaxda Soomaalidu inay la mid yihiin madaxda Carabta markastii oo Palestine dhibaato loo geysto Carabtu waxay dhahdaan waa ka xunnahay waan cambaareynaa waxna ma qabtaan Palestine sidii baa loo garaacaa in qazana sidii baa loo haystaa sidii bay 10 sano gaajo ugu jirtaa sidii bay qudusna isticmaalka hoostiisa u yuurartaa sidii baanan caasimad looga dhigay abadiya oo Israa'iil ay leedahay oo laga xafuujiyay amba laga qaaday dhammaan wixii Palestiniya maamulkii Falastiin asiyada al-Arabiya maamulkii Carabta asiyada al-Islaamiya iyo maamulkii Islaamka xataa asiyada al-Masiixiya iyo tii Kristiyanismiga ay Nabi Ciise ku dhashay meelaha alayhi salaam waxaas oo dhan waxay ku tusaysaa walaalayaal dadku marka ay yihiin dad isdhiibay dad jabay dad aan xal iyo solution hayn labada kalmadood bay dhahdaan waan cambaareynaa waan ka xunnahay kuwa kaleeta ee na weeraraya ee na dhibayana iyo ku hawshii bay sii wataan marka waxa la dhahaa al-umam al-fashila ummadaha fashilmay way hadlaan wax ma qabtaan ummadaha najaxayna fikir bay keenaan fikirka ay aqoonyahanku keenaan khibradu ay keenaan siyaasiyiinta qaata way hirgeliyaan ummadaha nool nolosha socota ummadaha nolosha ka dhacayna nolosha ridiqda noloshu way ridiqdaa marka daradeed aad baan uga xumaaday nin madaxa oo wax uu qaban kara iyo ninka shicibka ah iyo ninka wadaadka miskiidka fadhiya iyo ninka maxaan ku dhahdaa mucaaradkii inay isku hadal noqdaan oo hadalkoogu uu noqdo aan ka xunnahay waan cambaareynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bas halkan ay ku dhamaato 2 bilood 3 bilood nolol fiican la bilaabo haddana ay qaraxi dhaco intii aan ku soo celino musiga oo aan tumeyno ilaa aan ka qabri galayno ummadeena ay nolosha ku soo noqon kari weydo marka arintaas araar bay iga tahay arinta labaad ee araarta iga ah wax weeye walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala bini aadanka waxyaalada uu ugu faano uu ku galladaystay
uu sheegsto inay galladiisa tahay waxaa ka mida ammaanka, al-amn. kelmadda ammaan la yidhaahdo waa kelmad aan sharxi doonno maanta oo qaali ah. qofku inuu haysto ammaan, nabad inuu ku nool yahay. nabaddu waa wax qaali ah, walidaalika buu ilaahay qur-aankiisa suuratu quraysh baa loo yaqaanaa. waa suuradda quraata ee quraysh lagaga waramay magaceega, liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf. suuraddaas magac baan anu u bixiye la yidhaahdo suuratu lamn ashaamil. suuradda aan ku tilmaami karna inay ka warantay security socialka, social security, maaragtay nabadgelyada dhinaca bulshada, alamni almujtamaci. mujtamacu markuu ammaan helo sida uu inuu ahaado ay tahay waa sidee? waa siduu ilaahay maka ku tilmaamay. ilaahay wuxuu yihi acamahum min juuc wa aamanahum min khawf. ilaahay wuxuu yihi subxaana, wuxuu ka badbaadiyey, uu ka nabadgeliyey waxa loo yaqaana baahida joogtada ee caloosha. marka ay buugaanta qorayaan ay dhahdaan alxirmaanu walfaqru watakhalluf. waa saddex sulaasiya: xirmaan, inay dadku waxba haysan, kadibna ay baahan yihiin, kadibna ay dib u dhacaan. alxirmaanu walfaqru watakhalluf. amnigaas hadduu qofku waayo, waxba haysan, nolosha uu ka quusto, beri markuu soo kaco uunan gelinin wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo iyo meesha uu wax ka soo qaadayo, oo noloshiisa dhan uu ku saleeya shaxaad, inuu wax soo shaxaado, uu dad soo shidaaro, qofka ka fikra jeebkiisa lacagtiisa ku talagalo, haadaa waxaa dhahdaa qofkaasi waa qof quusan, nolosha uu ka quusan yahay, wax kastuu samayn karaa. marka waa xirmaan, nolol ma hor taalo. nolosha waxaa ka dhasha noocaasa baahi, faqri baa dhasha, ballaadhan, fidsan, baahsan baa dhasha. faqrigaa waxaa ka dhasha takhalluf, dib u dhac baa ka dhasha. ولذلك بو إلهي كل دقال من هذه الآية القريبة يابك بدن العجيبة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. حرمان مجرى، قاجة مجرتو، فقرنا مجرى، تخلفنا مجرى. مركا محادة عيا وآمنهم من خوف. عبسينا مركا بالله قد نبت وبضا وحيسطا إن ندركوا النولين وحوال بقونا يرين وحوال بقوا فرية هي وبدنيا هي kama fikiraan nolosha inay dumiyaan. laakiin ummaddu markay waxba haysan, dadku waxay ku kulmaan inay nolosha dumiyaan. hadday kol ka fikirayaan nolosha inuu dumiyaanna, qof kasti baa ka faa'iidaysan karaya. marka aaraartaa waxaan ula jeedaa, suuradda waxaa laga yaabaa inaan salaada ku tukanno, xataa dumarkeena qur-aanka aan aqoon inay yaqaanaan hadihi suura. laakiin maa dalaalaatu hadihi suura, maa cumqu hadihi suura? suuraddani halkay ka tagaysaa? maxay inaga dhaadhicinaysaa? falsafaday xambaarsan tahay maxay tahay? way inagu yartahay ikhwaani fillah. marka cilaaqa ka dhaxaysa, xidhiidh baa ka dhaxeeya bayna aljuuc, gaajada, wa bayna incidaami alamni, iyo security inuuna jirin amni, inay ammaan jirin, iyo baahida iyo gaajada. cilaaqa ka dhaxaysa, xidhiidh baa ka dhaxeeya, relation baa ka dhaxeeya, relasyon baa ka dhaxeeya. ma jiri karo meel ay gaaja taallo ammaan ma yaalo. qofka idhahda ammaan baa jira waa been. ammaanka waxaa loo yaqaanaa culumta iminka socialka ee bulshada alamnu lwahmi. waxaa loo yaqaanaa imagination, waa wax la iska dhaadhiciyey, waa amni beena. amba waxaa loo yaqaanaa alamnu lmuhaya, waa amni u diyaara lilinxiyaar, inuu dumo. maxaa yeelay waxaa yaala wixii duminayay security socialka o dhan iyaa yaala. marka walihaada ikhwaani fillah, labadaa aaraar waxaan ugu talagalay in caqligeenna aanu ka fikirno. waxaan galaynaa mawduuceena wuxuu ka hadlayaa muqdisho iyo qaraxyada, jabuuti iyo dhimashada. muqdisho iyo geerida ka imanaysa qaraxyada, iyo jabuuti iyo geerida ka imanaysa jirooyinka iyo cudurada iyo baahida iyo gaajada. waa labada wadan een leenahay oo ku sugan xaalad laa xaalad maaha, waa meel ka baxsan taariikhda, haamishu taariikh bay ku nooshahay. ikhwaani fillah, ilaahay markuu ina abuuray tabaaraka wa tacaala, haddaan bini aadan nahay, wuxuu inaga yidhi waxaad tihiin dadka aan khalqiga makhluuq oo dhan ininkaan inigu jecelahay. limaada? lianna waxaa inigu galladaystay laba arrimood, oo laba arrimood ay ka dhalanayaan. kow, waxaan igu galladaystay caqli, maan. waxaan igu galladaystay ruux. subxaanaka yaa rabbi. caqliga maxaa ka dhalanaya? waxaa ka dhalanaya fikir baad keenaysaa nolosha lagu wado.
xayawaankaad ka duwan tahay sidaan sheegi doono. labo ruuxda maxaa ka dhinaya xor baa tahay. qofka aan ruuxu lahayn xor maaha. xayawaanku ruux ma leh. xayawaanku waa jir dhaqdhaqaaqayo ilaahay geliya awood kale. marka muxuu ku nool yahay qariisuu ku nool yahay. iraado ma leh, rabitaan ma leh, ma kala doorashooyin ma kala leh. hab baa loo rabeeyey, habkaabuu maraya. laakiin insaanku qofka bini aadamkii waxaa la siiyey iraada, waxaa la siiyey mashiica, waxaa la siiyey inuu dooran karo wax saxa iyo wax qaladka, inuu kala garan karo, kadibna uu caqligiisa isticmaalayo. labadiiba waan xidhnay, waxaan soo dhignay arshiifka. saa daraaddeed waxaan u baahanay ikhwaani fillah inaan baranno atafkiir, sidee loo fikiraa. war tafkiir marka aan ka hadlayo waxaan u jeedaa ma aha inaan gidaarka fadhiisanoo fikirno. 3 nooc oo 4 nooc oo loo fikiraa jira. التفكير الحيواني baa jira. xayawaanku uu fikiraa. muxuu ka fikiraa xayawaanku? wuxuu ka fikiraa waxaan soo socda. kow uu baahdaa, galmood buu doonaa, uu doondoonaa jinsigii kale. okay, qofka inta uu caawa soo kaco gabadha uu la seexan lahaa ka fikiraayay maaha mufakir, waa xayawaan. xayawaanku uu fikiraa, wuxuu ka fikiraa wuxuu maanta cuni lahaa. ka intuu galaa uu soo boobaa. qofka ka fikiraya wuxuu maanta cuni lahaa inuu helo maaha insaan, waa xayawaan. xayawaanku uu gaajooda, uu haraadaa, wuxuu ka fikiraa inuu biyo cabo, sida iminka aan biyaha u kabanayo. qofka intaa ka fikiraay waa xayawaan. alxamdulilah. xayawaanku uu fikiraa, uu ilmooda, uu daalaa, wuxuu doondoonaa meel wanaagsan oo uu ka nabad galo. in lasoo weeraro caawa uu ka gali kara xayawaan soo weerara iyo qof dila, meel raaxala ayuu doondoontaa. sida bisadoo kale waad aragtay, way gogolataa meel fiican, way seexataa. qofka ka fikiraya inuu sariir fiican helo, mukayaf iyo maaragtay qaboojiye fiican uu helo, oo uu hoos galo, oo markaana uu hoos seexdo, maaha insaan, waa xayawaan. xayawaanku uu fikiraa, wuxuu ka fikiraa muhadidaad baa jira, waa lagu soo weerarayaa. waxaa ku soo weeraraya xayawaan kaa xoog badan. maxaad ka samaysani? gaashaamayse, sidaad uga baxsani, halkeed ka gali? khuduu dhigaa, planik buu dhigaa. xayawaani ah. insaanka ka fikiraya waa lagu duliya dhuumo uun adu keligaa, dadka kale waxba kaalama socdaan, maaha insaan, waa xayawaan. nooca culummadu waxay u yaqaanaan culummada baadha cilmiga tafkiirka atafkiir alqariizi amba atafkiir alxayawaani. waa systemka ay xayawaanku u fikiraan. qof kasti oo 5 shay ka fikiraya waa xayawaan. qof halkan jooga oo le maanta raashinku wuxuu ka dilaacay xamar u shaqo tag, hargeysu ka dilaacay hargeysa u shaqo tag, jabuuti baa meel lagaga tuujiyey jabuuti u shaqo tag, ka soo baxso kanada taalay kanada imo, ka baxso baari tag oo baari tag. هذا النوع من التفكير وحيواني، ما هو تفكير إنساني. لبو وحويا درجة اللبات تفكير كاللبات محوياي والتفكير البدائي. وضدك انت كسر سرك عين سي عادي وفكرة، سي ناتشريلا، سي بدائي وفكرة. وحويا وحادعي كرا دقال محايا لا، وحادعي كرا مارتي ضد هشيني محايا لا. maxaan u baahanahay laxdadan waxaa dhacaya doorashooyin, maxaa yeela noocaasina waa nooca tafkiirka waa tii kaymaha berigii hore marka laga soo baxay ee geedka la hoos yimiday habkii loo fikirayay wey. maxaa yeelaa imika uu laga fikirayo oo hore loo sii dejin, tafkiirkana waxaa dhahdaa atafkiir albidaayi. okay, tafkiirka saddexaad waxaa dhahdaa waa tafkiirka kaa ka sarreeya, waxay dhahdaan atafkiir annawci. waa tafkiirka lagu sameeyey dowladaha. war annaku ma kala adkaanayno, annaku ma kala maarmayno. maxaan yeelaa waxaan u baahannahay wax inteennoo dhan noo dhexeeya oon ilaashano oonana ilaalisa. hadihi dowla tafkiirkan nawciga lagu sameeyey. berigii hore dowladda qolaa samaynaysay xoog dad ku qabsanaysay, sida boqortooyada sacuudiga, mamlaka alcarabiya sacuudiya, oday baa qabsaday cabdilcaziz dhado, dadkii uu adoomiyey, reerkiisii buu u dhiibay, ilaa maanta way xakumaan. sacuudiga oo dhan waa sidaa, khaliijka oo dhani, wadanada maaragtay berigii hore yurub saabay ahaan jirtay, حتى عالم الإسلامي أمويتي عباسيين ساجرين. لكن دولة الحديثة وحالة قاري دولة سيدي النبي وسميه dadku ay samaystaan ilaalishadaan, dhowraan, koriyaan, kobciyaan, hareeryaha ka joogaan, iyaduna ilaalisa, kobcisa, hareeryaha ka joogta, oo manaafic mutabaadala maca dawla iyo dadku ay wada leeyihiin. caqliyadaas waxaa dhahdaa atafkiir annawci. dadka dhan baa intay isku yimaadiin bay shiraan, dadku kama hadlaan. maanta waxaa ka dhacday magaalada muqdisho, maxaa ka dhacay? waxaa ka dhacay qarax. maxaan yeelaa? han gurmano, lacagahan ururino, aan iska seexano. haddana maanta daad baa dhacay, dhulkiibu roob baa dumi, maxaan yeelaa? han ururino, han yaacno. maanta maxaa dhacay?
waxaa roob xun baa jabuuti ka da-ay maxaan yeelnaa han ururna han yaacna hajoogsanna haddana maanta maxaa dhacay hada tafkiir bidaayi saadij waa tafkiir caruurnimo waa muraahaqa siyaasiya waxaa loo baahan tafkiir nawci tafkiirka saddexaadi waa kaa weeye waa kan keenay waxaan maanta aanu haysano weyaan ee yurub ka jira ee america ka jira ee canada ka jira ee australia ka jira ee iiraan ka jira ee maarata turkiya ka jira ee malaysia ka jira ee ciraaq maaragtay markii sadaam laga duminay maanta halkii waxaa dhan waxa keenay waxa weeyaan waa tafkiirka bidaa'iga iyo tafkiirka caqlaaniga ah amba nawciga ah tafkiir sida afraad ee loo fikiro waxa weeyaan waa tafkiirka istiraatiijiga ah waa istiraatiijiyadu maxay sheegaysaa istiraatiijiyadu saddex shay bay sheegaysaa in la joogsado oo su-aal la isweydiiyo maxaan nahay maxaan rabnaa maxaan hor yaalla maxaan nahay waa in laga jawaabo maxaan rabnaa waa in laga jawaabo maxaa ina hor yuurara oo dhibaato ana waa in laga jawaabo kadibna lasoo bandhigo solution xuluul xalal kadibna xalashaa la hirgeliyo iyada oo loo dhan yahay hadi hiya tafkiir alistraatiiji waa dadka waaweyn sidaas bay sameeyaan sidaas buu Kissinger wuxuu dhahdaa maraykanka berigii hore waxaa ka shaqayn jirnay inuu kor u socdo oo adduunka wada qabsado iminka waxaan ku dadaalnaa in maraykanka la ilaaliyo inuuna soo dhaadhicin lianna quwado kalaa hirdinaya marka waa inaan awooddiisa ilaalino si uunan u soo dhaadhicin waa tafkiir istraatiijiya canada waxaa la ilaaliyaa rafaahiyada mujtamacu waa mujtamac la koriyey oo gaadhay darajatu rafaahiya inay dadku gaajoon ay hore u socdaan sidee loo ilaalinaya baa laga fikiraa waxaa laga fikiraa israa'iil cadow badan baa inagu meersanay iyagu iska dhaadhiciyeen sidee baan iyakana u duminaa annakuna u joognaa iiraan waxay ka fikirtaa sidee baan u ahaanaa awood dibadda ku fidda gudahana iska ilaalisa dhexdana is haysataa turkigu wuxuu ka fikirayaa sideen u noqonnaa lambar aan dib loo celin karin waxaa laga fikiraa sidaa soomaalidu maxay ka fikiraysaa jibuuti maxay ka fikiraysaa tafkiir istiraatiijiya ma jiro tafkiirka istiraatiijiga jira waxa weeyaan waan ka xunnahay waan cambaaraynaa tafkiirka istiraatiijiga jira jibuuti waxa weeyaan noo joog ha naga tegin iyo maaragtay haybad la khadraay labadaa baa jirta jibuuti idan istiraatiijiyadda jibuuti ka jirta waxa weeyaan waa istiraatiijiyadaas noocaasa soomaalina waa noocaas maha istiraatiijiyad waxaas idan waxaan u imanaa ikhwaani fillah su-aal baan ka jawaabaynaa magaalada muqdisho sidaad ogtihiin dhammaantiin sidaad ogtihiin muqdisho waa magaalo taariikhiya muqdisho waxay jirtaa wax ka badan 1000 sanadood muqdisho waa caasimad soomaaliyeed caasimadaha jira kuwa ugu magac dheer waa 2 3 muqdisho waxay leedahay political geography siyaasiya oo gaar ah waxa ay dhex taallaa badda cas iyo badweynta hindiya magaalada muqdisho waxa ay tahay deegaan waxay ku taallaa hawadeedu uu dhadhaxaad yahay oo aad u qurux badan oo nolosha naajarku ay ka hirgalayso muqdisho waxay ku jirtaa magaalooyinka kobaca bini aadamnimo uu si laxaad la uga socdo fidista dhismuhuna si laxaad la maanta uga socdo 2 malyan iyo badh ilaa 3 malyan oo qof baa magaalada xamar kaligeed degan quwad bashariya iyo magaalada fadhida dad kala duwan baa degan waa run dad baa u badan laakiin qabaa'il Soomaaliyeed oo kala duwan iyo magaalada soo dhisi doonto oo deganna waxyaalada ay gaarka la tahay waxa kamid ah muqdisho kobac tacliimeed baa ka socda dhinacan ka eegay anigu waxa ka socda aqoontii baa kordhaysa walow kam ahaan ay kordhayso xagga tayada maaha tira ahaan jaamacado 10 ka badan iskuulo dhexe oonan aad u badan iskuulo sare oo aad u badan iskoolo hoose oo aad u badan iskoolo gaar loo leeyahay waxa u socda wax aan caadi ahayn baa ka socda muqdisho waxa ka socda dhaqaale ta'siiriya geeska Afrika oo dhan suuqa bakaaraha la yiraahdo subaxa marka la furo sarifku meeshaas iyo dhaqdhaqaaqa magaalada meesha suuqa bakaaraha ka dhaca wuxuu ta'siiriyaa Nairobi wuxuu ta'siiriyaa Dar es Salaam wuxuu ta'siiriyaa Addis Ababa wuxuu ta'siiriyaa gobolladoo dhan wuxuu ta'siiriyaa uu raadiyaa dhaqdhaqaaq aad u fara badan oo geeska Afrika ka jira marka bakaaruhu waa suuqa aan iraahdo wuxuu noqon doonaa suuqa geeska Afrika amba Afrika oo dhan
hagi doona dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya noloshiiba u soo noqonaysa waxayna ka soo noqonaysaa dadkiiba doonaya inay noolaadaan raba inay noolaadaan okay arinta iyadoo ay Soomaaliya ka jirto hadaba magaalada Muqdisho oo sida ay wax u socdaan oo dadku ay ta'hiilul hayaat noloshii rehabilitation ay soo sameynayaan ba had iyo jeer ay dhacaysa muhaddidaat waxyaalaha hadidaya amniga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxyaalada Muqdisho hadida amnigeega securitygeega maxaa kamida waxaa kamida waxyaalada Muqdisho amnigeega hadidaya waxaa kamida habka ay Muqdisho u dhismayso waa inaan fikirno bayra waa kow waxa waxyaalada hadidaya ee dhibaato ku haya amniga Muqdisho waxaa kamida dadka siday iskugu socdaan aanan control ku jirin si caadi loo socdo waa arin hadidaysa amniga Soomaaliya gaar ahaan caasimada waxyaalada hadidaya waxaa kamida oo muhaddid ku ah waxa weeyaan waxa waa furista ay furan tahay haday kor tahay iyo haday bad tahay iyo haday dhul tahayba ay u furan tahay kullu shay waxyaalada hadidaya waxaa kamida ta'addudul walaa'at dadku waxay leeyihiin walaa'at abtirsina badan dadku waxay amar ka qaataan xarakatu shabaab waxay siiyaan cashuur waxay siiyaan maaragtay iyaka dhexgala dadka nabadgelyadu iyaka asiliya iyaka ayaa haday laba bayc busharo oo isdiraan iyaka kala walaa bay u leeyihiin dadka qaarkoodna dawladday walaa u leeyihiin dadka qaarkoodna dibadday walaa u leeyihiin oo wadano kale iyo walaa u leeyihiin waxa weeyaan waxaas oo dhan ta'addudul intimaa'at wal walaa'at wa muhaddid amniya securityga tamaasuka daaqiliga ayuu keenaya marka aan rabno annako oo ah magaaladii Muqdisho u fikirayna nabadgelyadeeda ilaa caasimadii qowmiga waxa dhacaya in aan garanno in aan horta la imano tafkiir aan kaga hortagno waxaan dhacaya tafkiirka marka Soomaaliya maanta yaala waa maxay markaan dhageysto idaacadaha markaan akhriyo buugaanta markaan akhristo istiraatiijiyaadka aan dhageysto sida looga sheekeeyo hatta reer galbeedku markay ka hadleen amniga Soomaaliya in badan baan dhageystay in badan baan wax ka akhriyay waxa ila soo baxday in ay yaalaan afar shay oo afartuba ay qaldan yihiin kow تكوبات وحويان التفكير على العشوائي للأمن إن أمرك أي أمني وحماضون ليسكوي بعده ولا فكره إن سكرتي قال لك فكرة عشوائي كمارتي مدحتوي سوق فكرته رئيس الوزراء سوق فكره قلنا المخابرات سوق فكرا عيادك سوق فكره بوليس سوق فكره قلوين كمارتي maxaan ku dhahdaa mujtamaca haduu jiraba bulshada rayidku ay si uga fikiraan odayaasha iyo ugaasyada iyo salaadiintu si uga fikiraan culimadu si uga fikiraan waa ashwaay nin basay la tahay waa tafkiir hawaa'i kaasi waa mid jira ani waxa ila tahay bay leedahay amnigu sida maaha adi waxay kula tahay maaha amnigu wuxuu leeyahay khudad la dhigo khudad kale oo badiila dhado saddex baa la dhigaa waxa la dhigaa planning laga hortagayo amni xumada mid labaad baa la dhigaa oo ah كبديلة هدي كأو حماده مثل حد بالرجاء رادو هدي اللبض وحمادان محب بديلة A B C D بالرجاء أوكي وتكوبات هذا وحاجر التفكير آني إمي كم حد عي إمي كان فكرنا وآني إمي كان في لحظة وحيوب حين حماده قاركود التفكير اللحظي للأمن وكعربته كله أوكي سوشيك هدي أتكبر تقف قرح سماليا هذا واحد اسمه سوشيك واحد وأمني لحظة ضابط لنا أمني taasina waxa weeyaan waa wax ku xidhan waqti amnigu waqti kuma xidhno Canada qarax kama dhaco laakiin amnigu uu soo jeedaa dawladdu way soo jeedaa shicibku uu soo jeedaa dad kaniisadu way soo jeedaa masaajidku uu soo jeedaa dadka oo dhan waxay ka shaqeeyaan amniga li'anno amnigu uu khuseeyaa qof kasta waa inuu caawa seexan karo uu bari soo toosi karo hawshiisa tagi karo baskiisa raaci karo كلنا مسؤولون عن الأمن دمانتين وحن مسؤول كنهي سكيورتي كان مسؤول كنهي مركز طلب هذا وطها هذا التفكير الانفعالي التفكير كعرض قصر يسمى حمر بوقر حكا دعي والو اويا مركز بالا دجينيا محسن لو يلي هذا مش تفكير استراتيجي كمان وانفعالي بعد هذا انفعالي ظاهرة صوتية سيستم كعربت ويان عربت انت عن اسلامك عرفت عن كبرنا بقى انت لان انا waxaan isku laaqnaa الاسلام والعربيه عربت dhaqankaygi baan qaadanay
maadaama 30 sano timir ay nasiinayeen wayna carabiyeen hatta aqliyadeena amniga ahayd waxay ka dhigeen systemka noocan oo kaleeta ah ee inficaaliga ah ee aan lahayn khudad iyo istaraatiijiyad aan lahayn waxaa dhada wasaaradda arrimaha gudaha ee carabtu waa wasaaradda ilaalisa naqaska dadka taa amni ma waa sheegi doonaa dadka neefsan xitaa way ilaalisaa way ka daba tagtaa waa la xarataa aqliya mukhaabaraatiya dhada waa mukhaabaraadnimo dadka la daba guro la daba socdo oo tiina waa la qaatay waa la sheegay xamar systemka in la qaatay laakiin ma soconaya systemkaasi waxaa jira nooca farada at-tafkiiru al-amni lil-amni ina security-ga looga fikiro si security-ga arintaasi horay baa loo diiday waxaa la yiraahdaa bari baa shir lagu qabtay Kuwait waxaa qabatay culimada tarbiyadda waxay yiraahdeen maada yuriidu at-tarbawiyuna min al-i'laamiyyin dadka education ka shaqeeya tarbiyadda ka shaqeeya maxay ka rabaan dadka ka shaqeeya warbaahinta su'aasha waxaa ka dhalatay su'aal kale maada yuriidu al-i'laamiyuna min at-tarbawiyyin dadka ka shaqeeya i'laamka iyo warbaahintu maxay ka rabaan tarbawiyinta su'aasha saddexaad baa ka dhashay maada yuriidu at-tarbawiyuna wal-i'laamiyuna min as-siyaasiyiin maxay ka rabaan dadka tarbiyadda ka shaqeeya iyo warbaahintu siyaasiyiinta su'aal afraad baa ka dhalatay ماذا يريد الإعلاميون والتربويون والسياسيون من الاستراتيجيين ما حينتم بكربان علماء استراتيجي كالكا إذن سؤاشي ما حيكون صار نقطي رؤية استراتيجية إن يجرتو فيشن استراتيجية أو تربيتنا اللي قد جيو تعليمنا اللي قد جيو دقالها اللي قد جيو ورباهينتا اللي قد جيو سياسة اللي قد جيو ومدى أركتي استراتيجية يا نجح ولذلك وحيدا الأمم العظيمة ومدها وين تتحدث عن الإنجازات العظيمة وحي كشاكيان وحصوصارك ووين ساكا يشال يضرد تركيا وحا لو قد بالدغيا بابوركي ugu horeeyay koronto ku socday sameeyaan injaaz usbuuc koor bil koor waxay u dabaldegayeen inay sameeyeen markabkii ugu horeeyay barmaaya badda iyo biyaha isku xidhaya bariga iyo badda ee diyaarada ka dul doosayaan waxay u dabaldegayeen qablaha inay sameeyeen madfac qaaradaha ka talaabaya waxay u dabaaldegayeen ka hor inay fureen madaarka adduunka ugu weyn waxay u dabaaldegayeen inay fureen بريشكا أدونك وين إنجازات عظيمة الأمم العظيمة تتحدث عن الإنجازات العظيمة والأمم الصغيرة ضهير الضعيفة تتحدث عن الأشخاص ضدك كشاكيان هبلايوي بقرة دي بقر كيو كي وحنا إلى ضدك العتي ولا جاي شطاي إنك جيبوت شغله إنك جيل العتي كقبصة خضر حين بقى قبصتي وإني أويان سيء روسيس وإني هساسي وحي وسوسيديسو أم وسوسيديو هذه العقليات الصغيرة وإلا رادو كالي هبل أجيجوتا كندا جوجا كالي معكو يردي بناي حاجة قاتاقا صدق كنا ضلا كالي أنا بقول سيرنا وأرض سيداي هدو ترى عنها لقطه هذه الأمم الصغيرة الضعيفة إخواني في الله تفكيرك شنادي وقدام بيوا محي وكهلوبا هي التفكير الشامل الاستراتيجي يلا دجيا تفكير شاملة واستراتيجية ومفهوم كأمني قالوا صالحيو أمني ومعاطة هاي بارت الله الله سكيرتي محوية سكيرتي مقرح بعوايا ما هي قرح مريكان بكرعي أدوك دولة وحو بدن قرح بكرعي علوصا قرح وكدعي كرا مقالة والبكرعي هل كان كنا لو كدعي فرنسا بكرعي إنجليز بكرعي قرحه أستراليا بكرعي قرحه ودعي كرا لكن هدو قرح كدعي مقالة يرى كنت الله وقبل وطن هرمر قاري كما دقنو وطن كاسي أمليسي هل اسمه قاري لأنه وأرني يرى دعضي أرنتاسي والحالي كرا محاجر محالو حاليا وحايا مفهوم الأمن الشامل مفهوم الأمن الإنساني وحلو بحي إياه يالا أحبابي في الإسلام ولا ليال وحويا مركو إلهي سورة النحل كجور رمي قرية وحولي كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان انتهوا إلهي الأفرس قرية وهجت ومقالة وقبل ودولد وحضارة وقل ما حي صفات لها آمنة وأمن سكيورتي مطمئنة ولا دقيقة تقوي دقيقة ويحصلان نين والبا شقديسو تغا اسكولكيسو تغا دكتوركيسو تغا مارتي مسكيتكيسو تغا كنيسديسو تغا مطمئنة يأتيها وحا يماد رزقها وحا يباهين ددكو رغدا اسغو كلا غو لهين وفرة بوحا او كيمادا من كل مكان ادونكو دبو كيمادا هذه المفهوم سورة النحل باكا شاكيلس إلهي مركا وحو كورمي إني ددك قاركود اسك دوميان وحاسو كله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي هد إيا جروحو إسرائيل
الخوف والجوع مكلا هران الجوع والخوف عبسدا إيا قاجدا إيا عبسدو اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع رسولك إلهي بكنا بدقلي صلى الله عليه وسلم مركا جوع إسلا كان عبسدا بدنا يدا كانت قاجدا ودنك الدقالة كدعان قاجة كدعدا ودنك قاجة كجيران الدقالة كتصعدا هذا ومعادلة عادية جدا إلهي آيادا كذبوا حكا بكاني ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون إلهي وحو صدري والأمن الفكري أمن الفكري رسول بو صدري ويبينيين إلهي مركا عذاب بكو قاضي يكو ظالمين دادكو انت ينهلين أمن سياسية يأمن دقالة يأمن وإن هلان أمن فكريا أمن إيديولوجيا وإن هلان أمن عقدية وهم ظالمون مركابو إلهي هداد وحا قرطان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مركا عنا وحو إلهي نسيي وبوحيي يدو حلالا ومعان عنا أو طيبة أو إلهينا هضنقة أو نعمة إلهية هداتهن كو إلهي عابدية تبارك وتعالى إخواني في الله كوفي عناني كدعضو لبدي يكون مركا تاريخ روحي ninkii ahaan jiray madoobaaya jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ka ahaan jiray secretary general ka ahaan jiray general secretary ka ahaan jiray secretary caam ka ahaan jiray baaratay ninkaas xogayaha guud ka ahaa wuxuu ka jeediyay khudbad jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa wuxuu sharxay waxa loo yaqaano amnul insani inay bini aadamku u baahayeen security social awal waxa jira waxa la amnu dawla ina dawladda la ilaaliyo xuduudeeda hawadeeda iyo badeeda waxa markii dambe la keenay amnul afraad in la ilaaliyo dadka bini aadamka waxani waxa la yiri waxan sax ma aha amnigu inta uu ka balaaran yahay waa maxay amnigu waalid amnigu waa shumuul bari waa insani waa in bini aadamka oo dhan la ilaaliyo markaan istiraatiijiyad la dagaalamaysa gaajada markaan dajino amni baan sameeynaa marka aan sameeynay istiraatiijiyad jahliga la dagaalamaysa oo dadka cilmiga baraysa amni baan sameeynay marka aan dadka u dhisno jidad iyo dikado iyo dariiqyo la mari karo oo baabuurada iyo maartay raadiyada nolosha biniya tahtiya dawladda hoosti marka aan dhisno isku xidhno oo sameeyno maartay shabakatu macluumaat ittisaalaat communication waxaan sameeynay amni baan sameeynay marka aan caafimaadka ka shaqeyno oo dadka labadiiba la sameeyo caafimaadkii ka hortagga cudurrada iyo cudurrada in la baabiyo labadaba marka aan la dagaalano waxaan sameeynay maartay amni baan sameeynay marka aan dadka cumrigooga laga fikiro inuu dheeraado oo 70 iyo 75 uu gaaro waxaan sameeynay amni maanta 45 jir iyo 50 jir bay Soomaalida ku dhintaan wixii rasaas u deysaba العمر المتوقع جيبوتي نشري كوتون iyo 50 jir rag iyo haweenku intaas ay ku dhintaan jimcida qurmaha 2010 bay soo saartay idan waxay taas ku tusaysaa ikhwaani fillah su'aashan aan ka hadlayno amni markuu ka hadlay wuxuu yiri amnigu waa baahida ugu asaasisan ee qofka bini aadamkii u baahan yahay nolosha daradeed mafhuumka amniguna waa maxay buuli waa inuu qofku ku xasilo meesha uu degan yahay waa inuu garto inuu yahay qof meesha laga lahayn qof meesha loo sheeganayn qof meesha laga ceshanayn qof meesha laga raafayn qof meesha loo diidayn qof meesha ku noolaan kara qof meesha horumar gaarsiin kara qof meesha horumarkeega ka faa'iideysan kara qof meesha qof meeshu ay leedahay هذه العقلية يرى اطمئنان وحصلها marka xasilada maxay ka imanaysaa confiance siqay ka imanaysaa siqadu waa maxay waa confiance waa kalsoonidu halkay ka imanaysaa waxay ka imanaysaa wuxuu ku kalsoon yahay in ayna ku dhacayn baahi inayna ku dhacayn gaajo inayna ku dhacayn cabsi inayna ku dhacayn dib u dhac inayna ku dhacayn cunf argagixisnimo in laga hor imaneyn okay su'aashaas quraanka ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu inooga jawaabay arkeen suuratu an-nahl حديث النبي عجيب صلى الله عليه وسلم نبي وحوري عليه الصلاة والسلام قفك من أصبح منكم نك إنك مذا أو صاك واجو أبريو يستغو آمنا يا آمنا نبات قبا سكرتي هروك نبات قبا في سربه قريسا في سربه ديغان كيسا في سربه ودن كيسا في سربه دولة ديسا في سربه عالم كيسا ضد قارسية العالم كله سرب الإنسان ابن الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الوطن وطن هو هالكي ودولك
دول كوردن ودن كيني وي هدي ودن كوردن نبدي كدي ويدو اوكي ما عنده ويت دراسه الاخريه الجيريا ام الجزائر الجزائر هدي اي كدعدو قرح iyo maartay dagaal sokeeyo maxaa wadanka ugu horeeyay ee halis galay waagii waa Faransiiska haduu Faransiisku halis gala maxaa halis galaya Yurub oo dhan Yurub hadii halis gasho maxaa halis galaya ammaanka adduunka oo dhan waa Algeria hadii wax ka dhacdo idan waxa la gaarsiiyay amniga halka ay timaanaankii rasuulku muxuu leeyahay man asbaha minkum aminan من أصبح منكم نكا إنيغا ميدا أمد إسلام كبني آدم كميدا كون بدبادة سر بجيسا وكو مفهوم كشامل كأمنية إنسانية وكوفي عنان كورمي لابد يكون كون يأفر بقول سنة كورب النبي نبرايا دين تنوان هاي سناؤن معافا في جسدي الأمن الصحي عافمات كجركيسو نبوحو عافمات قبا جرهان جركيسو عافمات قبا أوكي حمد ير أيا جيبوتي ليسي كمان بقول القف يعني هدان بينس كلا أردت كتو كبدن ما علم والبا وحكو قران محان كود هذا مارتي ناتكا وحكو قران إنا لله وإنا إليه راجعون هبلاي هبل باقوضي هبل باقوضي ما حيكو قوين شن لحت توقف أفر صدح ما حيكو قوين حمد هذا كلمتي لا دراسة هنا دراسة مجرته دكتورado ما فكريان لأن دكتورado وحيكون فكران inay horta dawladdu dejiso siyaasad amniya oo laga hortagayo cudurrada ma jiro okay problem weyn baa wadanka ka jira marka dadkii maxay ku dhawaaqay ku dhimanayaan qabuuriga buuxsamay qabuurihii la oran jiray beekaaga 12aad beekaadus imtalaat an bakrati abiha 7 sano gudiga 7 sano ayay qabuurihii meel qof lagu aasay ayna jirin annaas yamuutun taabuur bay ugu jiraan geerida ilaahay baa laynaya dadka laga dhaaqnaya ilaahay waa looga dhow yahay leyntooda gaaja leynaysa cudurra leynaya waxa leynaya yasi murugo waxa leynaya calaacal waxa leynaya oohin waxa leynaysa meel ay maraan markii waayaan inay iska dhintaan hakada yamuutun kitaab xaajira dhado العالم الإسلامي بين الحرمان والتخلف عالم الإسلام كله حياله حرمان إنه وحي عناب بهيسن يتخلف أوكي مشكلة أن كهلنا مركز صوامح وحن كهلنا قف الله بإنه هايستو جركيس إنه عافمات قبو وسكرتي عنده قوت يومه وإنه هايستوح عني مال والبابا هادو هايستو رسولكم حولي الدونكي أو دنبا الله يعني هذا هو المفهوم الشامل للأمن مركز دولته مركز فكريان dhalinyaradu maxay uga mid noqonayaan xarakatu shabaab maxay u galayaan muxuu qofku u noqonayaa mutadarrif saddex shay buu noqonayaa diraaso anigu aan imika aan wado waxa kamid ah waxa ii soo baxay qofka Soomaaliga ah waxyaalada u keena inuu noqdo mutadarrif xaq jirnimada maxaa ugu wacan saddex shay weeyaan kow alxirmaan baahida gaajada waxaas oo dhan waa kow laba waxa ugu wacan aljahl cilmi la'aanta aqoon la'aanta bas qofka madaxiisa laga buuxinayo 2 3 10 6 ayadood inta kale laga mamnuucayo tafaasiirta kale loo diiday ra'yi qura dhageyso aaraada kale ha maqlin aqwaasha culimada ha dhageysanin afkaarta culimada waxa dhada dunya ee culimada aakhira dhageyso baa laga leeyahay marka waxa baa la gaari baa laga dhigayaa dhinaca faraska laga xidhay laba dhanba baa laga dhigayaa meel adduun arkay ma jiro أريد صدحات وحوية البداوة والدخول في القفص بدون لماذا؟ تسكب بادية أو معرض نرش بقوات كي با وحاكو دعي صدمات حضارية وحاكو دعي شوك باكو دعي الججح البحنمو ياكو دعي وحاي دولد وحاي هلاير ولحدنكي ومدنية مركبة ويد عضي تو عسكرية وررسان با إيمتي مركبة ويد عضي وحا إيمتي دولد الآن ينو ولا سي وريري waxa uu yimid wadaado waalan baa mar helalay way sii waaleen waxa uu yimid maaratay qabqabalayaal way wareeriyeen wareer ummadii marka maxaa ku dhacay yas waa isku mid inuu noolaado iyo inuu dhinto inuu geeriyoodo iyo inuu noolaado labaduba u sameeyeen marka waxaas wuxuu abuurayaa dad wada adag oo wada mutakhallifina oo raba inay wax dumiyaan ولذلك ايها الاخوه qofku inta haduu haysto uu baxaya marka xamar maxaa leeyahay qaraxyaa lagu leeyahay dadkii maanta dadka dhintay walaalayaal
dhalinyaro jaamacadda ku socotay macnay leedahay. ninka intuu hub soo ururiyey laynaya meeshii baabuurku uu maaragtay cashuuraha iyo lagu qaadayay kala beyrka intuu soo joogsado ugu talagalay waqtigii ay dadku dirwada ugu badnaayeen inuu qarax sameeyo. هذا التفكير الاستراتيجي للتهديد الامني wuxuu qofkaasi doonayaa. wuxuu inoo diidan yahay inaan noolaano, wuxuu inoo diidan yahay inaan mustaqbalka aragno, wuxuu inoo diidan yahay inaan dad noqono, bal wuxuu inoo diidan yahay inaan rajeeyano. rajadu inaga baabinayaa. ciyaal yar oo jaamacadda banaadir ku socday intooda ugu badan oo bas ka buuxay oo habla iyo inamaba leh oo doonaya inay mustaqbal sameeyaan, hooyo iyo aabbo suuqa fadhiyo naftu ka baxdayna ay dhalinyar u soo gasheen buugaan u iibsheen jaamacadda lacag ka bixinayaan oo ay leeyihiin wax noqda si aan annaguna wax u noqono. ilmo yaroo mukhadram ah oo ka fikiraya inuu wax isku taro, qoyskiisiina wax u taro, kuwa soo socdana wax u taro, mujtamaciisana wax u taro. ilmo yaroo ka fikiraya in nolosha laga hor qaado, la qadar jabiyo oo la maaragtay la qalbi jabiyo oo la jabiyo. kuwa saa ku fikiraya waa acdaa, waa cadow. waxay cadow u yihiin wadanka iyo diinta iyo dadkaba. marka ka hortageegu uma baahno hadal waan ka xunnahay, uma baahno waan canfaaraynayna. wuxuu u baahan yahay in mafhuumka shaamilka la dejiyo. arinta cajiibka marka waxa weeye ikhwaani fillah, xadiiskii waa kaas, quraankii waa kaas, waaqicii waa ka, adduunku siduu fikiraya waa ka. annaka maxaa inaga dhigay dad si kale u fikira, dad markaan Soomaaliya joognana ka fikiraya inaan noolaano, markaan Jabuuti joognana ka fikiraya inaan noolaano, Soomaaliland ka fikiraya inaan noolaano, oon iska noolaano inaan ahaano. maxaa inaga dhigay? limaada la nufakir? maxaan u fikri laanahay? limaada la nasuur? maxaan revolution u samayn laanahay? la nuriid waxaan mar rabno maxaan oran laanahay? limaada? su-aasha waa inaan isweydiino. walidaalika ikhwaani fillah waxay dhahdaan maanta culummada waaweyn ee amniga ka shaqeeya biduuni tacliim xaqiiqi, haddayna jirin aqoon dhab ah, amni ma jiro. aqoonta dhabtii markaa waa maxay? waa aqoonta aan ahayn aqoonta shacabka u tumaysa qof aanan loo tumin. dictateer hadduu qofku aqoonyahanka shacabka u tumayo, aqoonyahan maaha. aqoontu waa inay ku xorayso. Karl Marx wuxuu oran jiray macrifa qaliila tajcaluka cabdan. ta aqoon yari waxay kaa dhigi adoon. macrifa mutawasita tajcaluka nisfa cabdin. macrifo aqoon dhadhaxaadana waxay kaa dhigi nus adoon ah. macrifa xaqiiqiya tajcaluka xuran. markaad heshid macrifo dhabana waxay kaa dhigi qof xora. qof xoray kaa dhigaysaa. idan laabudda min atacliim. labo, waxaa ka mid a waxyaalada qofka bini aadamka securitygiisa ricaaya sixiya, inuu qofku ka baqayn in jira ay ku dhacdo oo ay kaneeca dili karto, kaneeco amba uu dili kara maxaan ku dhahdaa xumadii, amba ay dili karta maxaan ku dhahdaa shuban yar, amba maaragtay calal taacuun wax adduunka ka dhammaaday inuu ku dhici karo, amba sida iyo aids uu ku dhici karo. waxaas qofku waa inuu ku xiroobo. laabudda min arricaaya, waa inuu qofku haysto ilaalin caafimaad. ما ها عافمات. عافمات هو وحلا يقانو دكتور كاتجي يقدر كليب بكوقري. ليس هذا رعاية، هذا تسمى علاج والمدوينية، لكن رعاية صحية. إن لو إلى العافمات وإن يجرتو أنا أفراد واحد هذا وإن يجرتو قفكم مركو صوقعه إنه كصوقعه جوري ونكسر سكن كريم. ما يقولن جوري بلار ما يقولن جوري عليني أنا ما يقولن جوري قصري أماها سكن كريم. guri u qalma inuu qaar waxay qoraan sakan laa'iq, deegaan u qalma qofku inuu gali karo hawle la kala rag iyo haweenku kala seexan karaan, waalidka ciyaal kala dheeraan karaan, meel television ay ku daawadaan leh, meel ay wax ku akhristaan leh. marka waa inay haystaan. waa waxyaalada la dagaalama amni xumada ka mid tahay. amni baan ka sheekeynaa, been baan sheekeynaa. waxyaalada waxaa ka mid a damaan xuriyatu tacbiir, dadku inay hadli karaan. حرية التعبير وإنها هيستان وإنها هذلي كران وهذلي كران سدا أي دونان وحيدا هذان وإن لقى إلى قفك كله. حماية الإنسان من الإنسان قفك كدلية وإن لقى إلى قفك ماذا حكاها قبصانية وإن لقى إلى قفك كحرية جريتان كاغا هي إن الدول نقطي وإن لقى إلى قانون وإنه جركا إلى دولة. حماية الإنسان من تغور الدولة، دولة ورابين لقطة إلى وحماية الإنسان إن إنسان كان لقى إلاليو إنه دولة دومية سبنا. كل هذا يحتاج إلى أمن. وحكى له أمن كمذا إن دتك لقى إلاليو محي إن لقى إلاليو وحلو يقارنه
التدهور إني بربرتو إني دمان بيئة environment إني دمان ولذلك وحي علماء الأعلام أمني مركب ما أنت لقى الله وإنه قف أمني فينانسيار وإنه عقص وإنه على الأقل كونتات وحوجران وإنه واحد بلا صوبيح كره وحوبيحين كره وعيبسن كره وحقادن كره هدول هيسن أمني مجرو عقلي إنا كسرنا أمني ما سمعنا ضد جونيا وبين ويان مخابرات اس جيبوتي هي مخابرات كحمر كجرة هي كوا سوماليلاند كجرة هي كوا إثيوبيا كجرة لا يصنعون أمنا مع الخوف ما سمعين كران أمني يدو أي جرت عبسي لا يصنعون مركا لابد من الأمن المالي قفوا إنه مال هان وحيشتو لبو أمني غذائي وإن تدكو وحي عنان هايستان وإن الراشين هايستان وإن أفكا وحقلين كران وإن علوشو صوت تيرين كران لا أمن بدون ذلك هذه وحالة وهي أمن مجرد وحالو بهاي إن يددكو هايستان سكيورتي عافي ماذا ماها ورقات بيان أو الله سميه وضدك اللي عالق قويو أو لعقتها قولي لقد استماها هذا كلام فارغ لكن هو أمن صحي وضدكو هايستان الأمن الشخصي قفكو إنه الشخصية دي سو أمان قبطو الأمن المجتمعي مجتمع وإنه أكل أمان قبو وإني ريرك قرع وكرنا بدقالو ريرك دقحنا وإنه كرنا بدقالو ريرك دلو وإن شعوبته كرنبت قلان وإن ضد كنا ولادان سلام اجتماعي سلام بلشو وإن كنا ولادان وإن أوصي خزرج لمدايو وإن أنصارتي مهاجرين لمدايو وإن السماء الوطن الأم وطن هو يأ وكل الناس يعيشون فيه وله ومعه وبه وطن ضدكو أي كل نوليين أي نوليين أي معرتي أي دسيان يسوون دسيا وإن السماء كل ذلك يحتاج إلى مفاهيم إنا نبدله يا لو بهاي الأمن السياسي وحلو بهاي أمني بوليتيكالكا إنا يدرسوا أحزاب سمايستان وحسب وورد شاي لأورن واكو اعترافنا خالدته هو من أفريقيا جلو محي حزبي وحلو كان وان اعتراف سنة كان ما اعتراف سنة من أعطاك حق الاعتراف قفكم مركو دشو أكد دنسانس بجبوت لسيا وحال سيا شهادة الميلاد أورد شيء حزبي مركو دشو waxaad siinaysaa waraaqadii dhalmada laakiin ma weydiinaysid maxaa u dhalatay waan dhashay dastuurka dhalayay waan dhashay khalaas marka waa inay ictiraafiyaan dhashay marka adduunka lama arag xisbigaasi muxuu dhashay ilaa adduunka saddexaad ma ahine dad baa Mareykanka laba xisbi ka jira Mareykanka boqolaal xisbi ka jira laakiin laba xisbi oo dadku kala xidhmaan waa inay jiraan boqolaal xisbi laakiin laba ma soo akhiran la yasihu illa sahih Canada waxa ka jira boqolaal xisbi laakiin laba xisbi saddex xisbi muhiima adduunku waa sidaa إسرائيل وحا كجرا بقولال حزبي لكن أفر حزبي ما حوق بدن تركيا وحا كجرا توبنية لبعتنية حزبي لكن شن حزبي ما حوق بدن هذه الحياة لكن لما رنكر حزب قام بحوجرا كاسنا بحوجرا كروي لا وحاس أفريقيا مكجرا الأمن السياسي بلوبهي إخواني في الله هذا بولا عليها ضدك حمر وحلينا يا إنجليش يا ضدك حمر وحلينا يا دقون نيمة الدولة ده يحول النيمة ضدك مدح قبائش حكومة oo aanan u fikirayn waxaas aanan ka fikirayn iyaa leynaya waxa kamid ah culumada aanan dadka ku tarbiyadeynaya ra'yi qura oo ku tarbiyadeynaya inay jiraan aaraa badan sida kitaabka uu qoray ibn rushd fi mas'alati aqwaash aan soo wada badhigayna qowlun dadka u sheegaya dadka waxa leynaya ikhwaani fillah waxa leynaya cadowga dibadda oo aan indhaha ka qabsan karin oo imaaraadka ugu horeeyo kii doonay had doono kii diiday had diido kuwaasaa leynaya dadka waxaa leynaya cadowga istiraatiijiga ee ummadda Soomaaliyeed dadka waxaa leynaya xumadda Djibouti ka jirta waxaa keenaya waxa weeyaan jaahilnimada aqoonta cilmiyeed aqoonta dhaqaale aqoonta siyaasadeed ee waxaas oo dhan ka jirta waxaas oo dhan baa dadka leynaya ikhwaani fillah marka maxaa la rabaa waxa la rabaa laba shay oo quraata iyo la rabaa shayga ugu horeeya waxa weeyaan al-hurriya dadku inay xuruubaan shayga la rabaad ee la raba waxa weeyaan in la sameeyo barnaamij loo dhan yahay oo aan dawlad ku xidhnayn oo mucaarad ku xidhnayn oo shacbi weynuhu uu leeyahay oo istiraatiijikala inta laga helayo waxaan ku jireynaa xalaqada mufriqa ah ee aan dhamaanin insha Allah ta'ala dhamaantii waa mahadsantihiin waxaan naga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh